bandhigan ay xalay Muqdisho ku dhigtay abwaanad Hibaaq Maxamed Cabdullaahi ayaa waxaa soo buux dhaafiyay howlkii lagu dhigayay boqolaal shacab ah iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo horkacayo duqa magaalada saraakiisha ciidamada kala duwan ee dawladda Soomaaliya ururada ka dhisan gudaha wadanka iyo mas'uuliyiin kale marqura dadkii bandhiga yimid waxaa dareenkooda bedeshay abwaanad Hibaaq Maxamed Cabdullaahi oo soo bandhigtay suugaan wadani ah oo ka turjumaysa xaqiiqda dhabta ah oo ruux walba ku dareemi karo ahmiyad xambaarsan dareen wadaninimo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada ayaa ugu baaqay dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed inay gudaha dalka ay dib ugu soo laabtaan bandhig noocan oo kale ah ay Muqdisho ka dhigaan. dad wanaagsan baa ka buuxsanaya oo isjecel oo walaalo ah oo caasimadooda jecel oo wadankooda jecel sidaas aan rabnaa dadka qurbajoogta inay soo noqdaan madu ay isjeclayn ay walaalaha ahayd aan la isku dirbayo marka tiibaan hadda inaan soo noqdayno Hibaaq ilaashadeeda Hibaaq ilaashadeeda iyo Hibanuur ilaashadeeda iyo kuwa kale oo soo socda ilaashadeeda waxay calaamad u tahay deegaanka abwaanada caanka Hibaaq Maxamed Cabdullaahi ayaa waxay noqonaysaa fanaanadii ugu horeysay oo bandhig noocan oo kale ah Muqdisho ka hirgelisa tani wixii ka dambeysay burburkii dawladda dhexe waxaana dhammaanba dadkii bandhigeeda xalay ka soo qayb galay qireen in fanaanadu ay suugaanteeda ku cabirto xaaladda dhabta ah ee ka jirta gudaha wadanka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Hon Cable TV magaalada Muqdisho.